بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء كحجينك جمهورية فدرالك الصومالية مهدي محمد قوليت قدر وزيرك عدالة دكتور حسن حلمان بيحي جالية مسؤولين تيدا UK مداخل رقنك مرت شرفتك له لمان برشلونة كسوق بشعاع وحفلة لندن لو قبنايو بعض الصحافة بعض فنك ورنتي عاون لوكال هرين لمانتين بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii farxad weyn bay ii tahay ra'iisul wasaare ku-xigeen in halkan London lagu soo dhaweynayo caawa isla markaana ay tahay 2 sano markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo loo doortay xilka isla markaana aad garatay in bulshada London ahmiyadda ay leedahay in halkan loogu yimaado warbixin loo siiyana runtii waa mid aad iyo aad iyagana u istaahilaan dowladda federaalkana runtii aad iyo aad uga mahadcelinayno. intaas ka sokow جالية UK وجالية رنتي أن بدنا مارس سوى ولا شقيني وجالية رنتي أتاجن شعب كصومالية من مدة وذجر كذا أتاجن دولة نمو أتاجن نبضين إسلام كان هرمود جالية ده الصومالية دلالك كالجوجا تاسو عك قرن كرتاسو دوينتي حالي قرن كتيار ده لبوجي من إلا يهد عاو وهل كان جوجنا waxay diyaar u yihiin in runtii ay kaalin weyn ka geystaan sidii dalkaas nabadna looga dhigi lahaa isla markaana horumar loo gaarsiin lahaa bulshada meel kasta ay joogto. mudan ra'iisul wasaare ku-xigeen muddadii 2 sano oo runtii sanadna aan xukuumadda ku wada jirnay sanadna aan hadda maamulka gobolka joogo runtii wax badan baa la qabtay anoo hubo inaad warbixin faahfaahsan siin doonto haddana markaan ka hadlo maamulka gobolka Banaadir muddadii sanadka ahayd oo 29kiina aad nala joogtay xafladii ku soo bandhignay waxqabadkii 12 bilood runtii waa garan kartaan caasimadii iyo howlaha ballaaran ee ka hayno intaasna kuma eke waxay u baahan tahay in la sii dardargeliyo waxa kaliya wax lagu dardargelin karna waxay tahay sidii fanaanada Brimo ay noo sheegtay mas'uuliyiintu haddii ay garba helaan shacabkooda la shaqeeyaan in wax badan la qaban karo horumar ballaaran la gaari karo. muddadaas 12 bilood barqaatay ka ahayd anaga maamul gobol ahaan waxaan u istaagnay shacabkii caasimadda sidii horumar looga sameyn lahaa isla markaana caasimadda loo tartami lahayd caasimadaha adduunka waxaan u istaagnay shacabkeena barakacayaasha ee 500,000 gaaraya ee magaalada Muqdisho joogo sidii xal waara loogu heli lahaa siyaasaddeena u diyaarinay isla markaana xafiiskii xal waara looga heli lahaana uu shaqeynayo waxaan u istaagnay in wadooyinkii magaalada Muqdisho dib loo dhiso oo 6 wado 12 bilood aan ku dhisnay waxaan kaloo u istaagnay in danta guud iyo goobihii danta guud ahaan jiray la soo celiyo si bulshada loogu adeego waxaan cadaalad u falnay shacabkii guryahooda laga haystay oo aan intooda badan u soo celinay intaasna waxay ku timid waxay ahayd dadaalka maamulka gobolka iyo shacabka gobolka sidoo kale sidaas si la mid ah waxaan ogahay 2 sano in dowladda federaalku wax badan qabatay 8 Febraayo 2017 tahay maalin ummadda Soomaaliyeed taariikh weyn ku leh oo doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajona Soomaaliya oo dhan meel walba joogaan qulubtooda iyo niyadooda isu keentay isla markaana kalsooni buuxda ay siiyeen madaxweynahooda oo ay u arkeen inuu yahay madaxweynihii shacabka. intaas ka sokow muddo 2 sano ah waa dareemayso weli madaxweynahana taageeradiisii inay sii badanayso oo hadda 26 Janaayo ugu dambeysay markii uu Garowe tagay sidii loogu soo dhaweeyay bulshada meel walba joogto u soo istaagtayna waa wax marqaati leh taasna waxay ku timid waxay tahay runtii shacabkii oo dareemay dowladooda inay dowladooda tahay mas'uuliyiintoodana inay garab galaan garba u noqdaan ay ahmiyad gaar ah siiyeen iyagoo isla markaana fahamsanaa in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu yahay madaxweyne u nugul shacabka qalbigiisana runtii inta qof la soo shaqeysay ee garan karto inuu yahay qof runtii u damqada shacabka u istaaga shacabka karaamada iyo sharaftoodana dib u soo celiya taasoo ay ka marqaati kacayso muddo 2 sano gudahooda in dhalinyaradii xabsiyada dibadaha ku jirayna la soo celiyay in loo istaagay
in qofka muwaadinka uu sharaf leeyahay isla markaana ay keentay go'aan kastay dowladda gaarto soomaalinimo iyo midnimo ka muuqato caalamkiina lagu dhiiraday in waxay shacabka dhibaayo in noo la dhaho isla markaana hore loo socdo taasna waa wax kaliya shacabka midayn kara karaamadooda iyo sharaftooda kor u qaadi kara marka runtii taasna aad iyo aad ayay madaxdeena ugu amaanan yihiin waxa loo baahan yahay waxay tahay marka madaxdu inta ay joogtana in lala shaqeeyo la garab istaago dadka shakhsiyaadka mucaaradkana waxaan leenahay waqtigiina suga waqtiga hadda la joogo waxay u baahan tahay in aan la isxagxaganin oo laga fiiriyo danta guud ayaa lagu gaaraa horumar dan guud ayaa keenta midnimo iyo wadajir intaas ka sokow mudan ra'iisul wasaare waxaan jeclaan lahaa inaan warbixintaadii si aad shacabka London ugu soo dhaweyso aan kugu soo dhaweeyo ku soo dhawow